kaadida badan habeenkii waxaa keeno cudurro kala duwan. haddii uu qofku isku arko in ka badan 3 ama 4 jeer inuu habeenkii musqusha aadayo ama kaadi badan inuu sameynayo, dabcan waxay ka dhigan tahay inay jiraan marxalado daro dhanka caafimaadka ah. in qofka habeenkii kaadi uu isku arko waxaa loo yaqaanaa nocturia, waxaana muhiim ah inuu qofkaas la xiriiro goobta ugu dhow ama dhakhtarkiisa si uu talo ama caafimaad ahaan waxyaabaha sababi kara loogu sheego, daawooyinkii ku habboonaana loo qoro. ugu horeyntii Allah ayaa mahad leh. marka labaad dhammaan asxaabta halkan aan ku saaxiibnay intii ugu cusub iyo intii hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan dul istaagaynaa mowduuca kaadida badan qofka markuu isku arko habeenkii. intaanan guda gelin mowduucaas saaxiibayaal asxaabay waxaan idinka rabaa marka hore inaad subscribe ka saartaan YouTube kanaalkayga. sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad su-aal isoo weydiisid ama talo caafimaad waxaad igala soo xiriiri kartaa adresskayga ama ciwaankayga oo yaalo YouTube-ka qaybta description-ka. xaaladan kaadida badan habeenkii ama nocturia waxay u badan tahay dhanka ragga. haddii jeer ragga qaybihiisa kala duwan waxaa lagu arkaa in mararka qaarkooda ay ka cabanayaan habeenkii in kaadi badan ay jirto ama in ka badan 3-4 jeer inay musqusha aadaan ay soo kaadiyaan. dabcan marka laga hadlayo kaadida badan habeenkii ama nocturia qaybo kala duwan ama siyaabooyin kala duwan ayay u imaan kartaa. waxaana ugu horeeyo cudurrada daaha ee qofka ku dhici kara, gaar ahaan cudurka kaadi macaanka. calaamadihiisa ugu horeeyo oo lagu dareemi karo inuu jiro ama jirka inuu ku jiri karo qofkan uu qaban karo waxaa ka mid ah inuu dareemo polyuria, habeenkii inuu isku arko in ka badan 3 ama 4 jeer inuu musqusha aado. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano congestive heart failure, in qayb ka mid ah wadnaha uusan shaqeyni karin, taasoo la dhihi karo in dhiig ku filan ama dabcan oxygen ku filan inaysan wadnaha soo geli karin, isagana uusan bambayn karin dabcan dhiiggii qaybihii kale oo jirka loo gudbinayo. dabcan waxyaabaha sida gaarka ah usii sababi kara in qofkan kaadi badan habeenkii isku arko waxaa ka mid ah maranka tubooyinka kaadi mareenada, gaar ahaan ureterka inuu jiro xiran ama inay ku sameysmeen calcium oxide dhagaxaan inay ku dhex sameysmeen. waxay sababi kartaa arrinkaas in kaadi yar ay timaado ee soo dhexgasho dhanka kaadi heesta, taasoo qofku isla markii uu dareemayo xanuunna ay ku qabanayso, qofkana uusan joogi karin ilaa uu musqusha aado. dabcan waxyaabaha kale oo ka qayb qaadan karo kaadida badan habeenkii isku arko in ka badan 3 ama 4 jeer waxaa ka mid ah infekshanada ku dhaco kaadi mareenada, kiliyaha iyo tubooyinka kaadida. dabcan waxaa la dhihi karaa arrinkaas waxay sababi kartaa caabuq inuu ka dhex sameysmo gudaha qaybahaas kala duwan, inay hadii jeer aysan kaadida celin karin ama kaadida dabcan aysan ku hakani karin. qofka markuu uu dabcan ay kaadi ay qabatana si degdeg ay ugu imaanayso ama musqusha uu ku ordayo. waxaana usii dheer waxa loo yaqaano dysuria, in kaadida ay gubto ama hur badan uu jiro. sidoo kale wuxuu kaloo isku arki karaa waxa loo yaqaano incontinence, mararka qaarkooda in kaadida ay ka baxsato. meelaha sida gaar ay u saameynayso waxaa ka mid ah dhanka kiliyaha, waxaana ku dhici kara infectionka loo yaqaano pyelonephritis, qaybaha kala duwan ee kiliyaha qaybta filtrationka qaabilsan inay noqoto meel caabuqeedu saaid noqdo. sidoo kale qaybaha kala duwan ee kaadi heesta ayadana in lagu arko waxa loo yaqaano cystitis ama caabuq inuu ka dhacay. dhammaan qaybahaas aan kala soo hadalnay waxay si fudud ugu saameyn karaan in qofka marka uu dabcan uu ku dhaco caabuq in kaadida uusan ceshan karin ama kaadi badan habeenkii ay qabato, taasoo la dhihi kara in ka badan 3 ama 4 jeer inuu isku arko kaadi badan habeenkii. waxyaabaha kale ka qayb qaadanaya in qofku isku arko habeenkii waxaa ka mid ah inuu jiro prostate hyperplasia, inuu ku dhacay dhanka qanjirka kaadi heesta ku yaalo waxa loo yaqaano benign prostate hyperplasia, inuu aad u balaartay uu weynaaday size-kii qanjirkaas uu aad isku bedelay, taasoo keeni karto inuu cadaadis badan saaro dhanka kaadi heesta. arrinkaas dabcan waxaa loo yaqaanaa benign prostate hyperplasia. sidoo kale waxyaabaha kaadida badan habeenkii qofka uu isku arki karo waxaa ka mid ah in qofka si saaid ay u shaqeynayaan mar walbo muruqihii ku hareereysanaya dhanka kaadi heesta iyo neerfayaashii ku hareereysanaya dhanka kaadi heesta, kuwaasoo mar walbo shaqo badan qabanayo. qofkana marka kaadi yar ay soo gasho u sababaya inuu kaadida uu aado musqusha uu soo kaadi,
arrinkaas waxaa loo yaqaanaa overactive bladder. waxaana ka mid ah kaadi baxsadyada qeybaha kala duwan ee dadka isku arkaan. sidoo kale dhanka iyo hooyooyinka markaan ka fiirino ayagana had iyo jeer waxay isku arkaan kaadi badan habeenkii. waxaa ka mid ah hooyooyinka dhalmagooye ee loo yaqaano menopause. waxaa lagu arkaa mararka qaarkooda inay lasoo daristo marxaladan nocturia, inay isku aragto hooyada in ka badan 3 ama 4 jeer inay musqusha aado ama ay kaadi ay qabato. taasina waxaa keeni karo isbedel waxaa ku yimaada dhanka iyo dhacaamada. qeybo ka mid ah dhacaamada tarankeeda ee qaabilsanay ayaa waxay noqdeen kuwa aad u yaraada, gaar ahaan kuwa loo yaqaano estrogen iyo progesterone. waxayna ka qeyb qaadanayeen mar walba in habsoo saarka taranka iyo waxaanta marka ay caadadu u timaado. markay meeshaas ay ka baxaan waxay noqonaysaa in elasticity ama murqihii iyo seedihii isku hayay dhanka iyo kaadi mareenada inay aad u dabcaan. qofkana mar walbana uu dareemo in habeenkii kaadi badan ay ka imaanayso oo aad u badan tahay kaadidaas ay saameynayso had iyo jeer. hooyadana mar walba ay dareemayso in habeenkii in ka badan 3 ama 4 jeer in kaadi ay ka imaanayso. sidoo kale hooyooyinka uurka leh ayagana dabcan waa lagu arkaa, sababtoo oo waxaa jiro isbedel dhanka iyo caloosha ama jirka, taasoo aad u balaaranayo ubadka ilaahay uu ku beeray, culays badan iyo cadaadis badanna uu ka dhalanayo. marxaladahaas waxaa ka dhalanaya marka qofka in kaadi badan habeenkii uu arko. sidoo kale waxyaabaha kale waxaa ka mid ah dadka daawooyinka kala duwan isticmaalayo, sigaar cabistoodu badan tahay, alkooladana aadka u cabo ama khamrida. taasina waxay ka qeyb qaadanaysaa in qofkan kaadida uu soo ceshan karin ama xaddi badan oo kaadi habeenkii uu dareemo. sidoo kale waxyaabaha kale oo keeni karo kaadida badan habeenkii waxaa ka mid ah infekshanada soo laabta ama qofka uu ku daaho. ragga iyo dumarka marka ay jiraan kaadi haysta in infection uu ku dhacay ama xagga hoose dumarka dhanka tarankooda in infection ay ku dhaceen, waxay dareemayaan had iyo jeer in kaadi badan habeenkii ay qabanayso. dabcan waxaa lagaa rabaa haddaad arrinkan isku aragtid inaad la xiriirtid goob caafimaad meesha kugu dhow si kale iyo daawo ku habboon lagu siiyo. haddii aalaydma next slide ama video soo socdo ayaa waxaa ugu hadli doonaa siyaabaha lagu daaweeyo, qaabka loogu hortago iyo waxyaabaha habboon oo qofku uu isticmaali karo. aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaa dhammaantiin. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.